kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah iyo waraysi aan la yeelan doono Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo aan ku soo qaadan doono waraysigan dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee Somaliland gaar ahaan khilaafkii u dhaxeeyay xisbiga talada haya ee kulmiye. Professor Samatar habeen wanaagsan kuna soo dhaw barnaamijka. Bismillahir Rahmanir Rahim. Walaal waad mahadsan tahay waan ka gudoomay soo dhaweynta dadkii ina dhageysanayay Soomaaliyeed ee adduunyada dhan ku noolaa iyagana inaan salaamo reer Somaliland si gooniya oo jacayl gooniya iyagana inaan u diro ayaan jecelahay dawaanay mahadsan yihiin Dalmar Media iyo Star International TV. waxaad la socotaa khilaafkan ba'an ee xisbiga kulmiye soo kala dhex galay labadiisa garab seed u aragtaa khilaafkan saameyn intee leeg ayuu ku yeelan karaa xisbiga? khilaafku waa laba ayuu aniga ileeg yahay marka siyaasadda iyo dimuqraadinimada laga hadlayo mid khafiifa oo xogaa moran yar iyo xogaa xusulka la isku yar dhufanayo oo ku saabsan dad xalaala oo u tartamaya xafiis amba xafiisyada siyaasadeed ee xisbi marka uu leeyahay adduunyada waa laga yaqaana dimuqraadinimada taasi dhibaato maaha laakiin iyo khilaaf aad u foolxun oo sun kale ay ku jirto oo waqtiga uu socdana qaraar badan iyo yaqsi badan leh guntiisuna ay dhibaato u keento dadka khilaafkaasi uu ka dhaxeeyo iyo wadanka maxaan ku raahayay aytiinkiisa ay khasaare weyn u keento marka labadaa in la kala saaro waa important amba Somaliland ha laga hadlayo amba Soomaaliya ha laga hadlayo amba Mareykan ha laga hadlayo amba Holland ha laga hadlayo amba England ha laga hadlayo wadankii kaste dimuqraadinimo haday socoto labadaa in la kala saaro marka ta hore waa wax xalaala oo caadi ah oo dimuqraadinimada macnaheega ayay ku jirtaa in tartanka waxoogaa khilaaf iyo moran uu ka yimaado oo dad mid walba uu isbidayo inuu yahay qofkii halkaa u qalmay laakiin waa khilaafka labaad khatarta weyn marka kulmiye xisbigu waa xisbi wadanka u taliya wadanka soo hayay maxaan ku raahayay si weyn wanaagsan u soo hayay xukunkii wadanka maanta khaatimadiisa in iyo tartankaasi inaanu noqon mid ay wasakh badan ku jirto oo suni ay ku jirto oo isagana kala daadiya halkaas khatar baa ka iman karta in la iska ilaaliyana waa lagama maarmaan. wasiiro tiro badan ayaa xukuumadda iska casilay wasiiradaas oo ku doodaya in uu madaxweynuhu garab raacay inkastoo arrintaa beeniyey doodoodaasi siday kula muuqataa? waan waxoogaa ka akhriyay dadna waan waraystay waanan dhageystay wixii wararahee idaacadaha adduunku ay ka soo saareenna waan eegay aniga waxa iila muuqataa halkaa madaxweynaha waxaad moodaa inay taladu seegtay waayo madaxweynuhu ummadda Somaliland oo dhan buu madax u yahay xisbiga dadka ku jiraana waa inay u sinaadaan ayaa aniga sida ila tahay marka madaxweynaha waxa ku haboonayd inuu yiraaho xisbiga golihii sharciga ahaa ee xisbigu lahaa dadka doonaya inay xisbiga iska soo sharaxaan oo ay madaxtinimada xisbiga dadka u galay doorashada ay ka soo baxaan inay qof walba u furnaato ee xisbiga ku jira ee doonaya inuu doorashada ka qayb galo tartanka loogu jiro xisbiga dadka ka soo baxaya marka madaxweynuhu inuu dhexdhexaad u noqdo ayaa aniga ila haboon marka halkaa waxaad moodaa inuu talada ay ka liicday madaxweynaha oo marka ay keeni karto khilaafkii caadiga ahaa dimuqraadinimadu inuu noqdo khilaaf ka weyn oo qooman keena marka dadkan ka baxay xisbiga dowladda hayi ka baxay ee wasiirada ah waxay farta ku fiiqaysaa halkaa inuu qoon durba ka bilaabmay dheecaankiisa iyo halkuu ku dambeyn doonaana ay warwar weyn keeni karto. musharaxiinta aan ahayn Muuse Biixi iyo Saylici waxa ay qaadaceen shirweynihii kulmiye ma muuqataa burburkii udub oo kale ku dhacay in uu xisbigana ku dhaco?
de xisbi haddii au ka adkaan waayo si transparenta oo cadaaladi ay ku jirto hadduu ka adkaan waayo sida uu isku maamulayo ee uu u soo saarayo dadka doorashada uga qayb galaya hadduu xisbigu ka adkaan waayo xisbiguna markaa wuu bariiqan oo inuu kala jajabo way suurtogeli kartaa aayatiinkiisa iyo mustaqbalkiisuna inuu meel xun ku dhaco way suurtogeli kartaa dad badan oo aan waraystay ayaa imika wadnaha farta ku haya oo qaarkood ay ku jiraan xisbiga kulmiye ay ku jiraan oo meelo sare ay kaga jiraan oo warwar weyne uu ka qabo haddii aanu xisbigu maamulkiisa iyo sida uu isku wado iyo doorashadaasu sida ay u dhacayso gudihiisa haddii aan si xariira oo macaan oo transparenta oo cadaaladi ay ku jirta aan loo samayn oo su-aashuna aanay noqon xisbigana maxaa u dana ummadda la doonaya in la hogaamiyo xisbigu sii hogaamiyana maxaa u dana haddii su-aalaha si wanaagsan aan loo weydiin de markaa way suurtogeli kartaa aad iyo aad bay u suurtogeli kartaa inuu kulmiya ku dambeeyo sidii ku hoyday oo ku baaba'ay xisbigii udub ee ka horreeyey dhowaan muuse bixi guddoomiyaha kulmiye waxa uu si cad u quusiyey dadka reer bariga ah ee isku soo sharaxaya jegada madaxweyne ku-xigeenka somalilan waxa uu sheegay markaa dadka aan dadkooga codaynaynba inaanay soo qaadan karin iyagu miyaanay caddayn markaa arrintani dadka reer bariga oo kale ama reer sol in jegooyinka sarsare laga hortaagay hadday taasu dhacdo waa nasiib darro weyn weeyi dadka iliidka somalilan hadday siyaasadda isku hayaan amba bari ha noqotaan dadka iliidka u ah reer sool amba kuwa hargeysa degan iyo hareeraheega iyo galbeed boorama degan iyo ha noqote iliidku siyaasadda ay isku hayaan inay naafayso dadka caadiga ah ee citizenska ah ee wadanka sida dhabtaa iyagu leh waxa weeye halkaa waa ceeb xun ayaa ka dhici karto way fool xun tahay dadka reer sool xaq bay u leeyihiin in ay ka qayb galaan doorashooyinka inayse soo sharaxaan xaq bay u leeyihiin dabadeetana ay qanciyaan dee ummadda inteeda kale waxa ay karti hayaan iyo visionka ay hayaan xaq bay u leeyihiin cid ka mamnuuci kartaana ma jirto amba qofku xisbi madaxa u noqdo ama madaxweyne ha u noqdo wadan ha noqdo cid ka mamnuuci kartaa qof xisbi madaxa ka ihi wadanka ma laha madaxweyne wadanka ma laha wadanka waxaa le dadka caadiga ah ee ku nool ilaa saylac ilaa badhan ilaa laascaanood iyo inta udhaxaysa ayaa leh marka dee anu waxaan qabaa inay tahay siyaasad meel gaaban ah hadduu qof doonaya inuu wadan madax u noqdo oo xisbi ka soo baxo oo hadalka sii riduu yidhaaho dadka halkaa degan degmadaa degani waayo waxa ishayaan dowladda la ishayaa amba dee waxa ay si kale u arkayaan somalilan sida ay u socoto kama mamnuuci karto in ay doorashada ka qayb galaan inay isa soo sharaxaan qofka ay sharaxaadda laga mamnuuci karaa waa noqdaa qof amba dembi wadanka ka galay oo dee lagu soo cadeeyo ay caddahay amba dee maxaanku idhaahayey si kale oo khatar wadanka ku ah loo arkayo laakiin hadalkaasi anigu waxay la tahay inaanu meesha qaban waa si wanaagsan xagga soomaaliya markaad ka soo jeesatay waxaad sheegtay siyaasadda soomaaliya in ay laba reer oo keliya u xidhan tahay sidan ay ku socoto tan somalilan maana iyada qudheedu laba reer oo keliya u xidhnayn anigu mabda'aygu had iyo jeer intii taagtayda ay tahay wuu ka soo horjeedaa meeshaan doona aan joogay in wadan amba magaalo ay u xidhnaato dad gooni ah inay u xidhnaato anu waan ka soo horjeedaa dimuqraadinimadana way ka soo horjeedaa dadnimadana way ka soo horjeedaa cadaaladana way ka soo horjeedaa marka haddii laleeyahay dee somaliland laba community bay u xidhan tahay samaroon iyo isaaq bay u xidhan tahay haddii laleeyahay dee qalad weyn ba halkaa ku jira wanigii hore uga hadlay anigu taa aniga waxay la tahay degmada somaliland wadankaa la yidhaaha ballaadhan dad badan baa ku nool oo reer somaliland dadka inay u sinaadaan oy doorashada ka qayb galaan oy tartanka ka qayb galaan oy dooda ka qayb galaan waa xaq aan cidi ka qaadi karin wey
markaa somaliland ma noqon karayso meel inta la sii karayo la yidhaaho labadaa qoys baa iska leh amba labadaa community baa iska leh la sii karayo dabeetana ma jirto choice kale iyo meel kaloo la mari karaa ma jirto labadaasaa iska leh dee ma noqonayso waa tii soomaaliya taasi baabiisay waatan soomaaliya taa kaga soo orod halkana markaa taas inay ka dhacdo ma suurtoobi karaysa aniga ila tahay haddii lagu taa kitaab laga dhigtana khasaaraheegu dee wuxuu noqonayaa mid wadanka baabiisa aniga mabda'aygu wuxuu yahay laba su-aalood uun in miiska had iyo jeer ay yaalaan wadanka maxaa u dana yaa danta fulin kara wadanka oo wadi kara waa labadaa su-aalood marka dadka jawaabteedii labadaa haya tanaa wadanka sidaasaa u dan ah ya halkaasaa la gaadhsiin karaa sidaasaa lagu gaadhsiin karaa dadka la yimaada in xukunka wadanka loo dhiibo ayay aniga ila tahay kolkaa qofkaasi amba ha ka yimaado buhoodle amba ha ka yimaado badhan amba laasqore ha ka yimaado amba seyra ha ka yimaado amba berbere ha ka yimaado amba burco ha ka yimaado amba gebel iyo hargeysa ha ka yimaado ayay aniga ila tahay waa in la iska ilaaliyaa reer somaliland iska ilaaliyaan wixii baabiiyey siyaasadii soomaali weyn waa inay ka fogaadaan oo cagsigeega oppositeka had iyo jeer ay keenaan halkaa xumaanta taalla wanaageega waa inay keenaan oo ay ku dhaqmaan hadday reer somaliland yihiin haddii kale somaliland ma soconayso siyaasadda somaliland waxay dad badani ka dhadhansadaan in ay qabyaaladu ku laran tahay adiguna horey waxaad u tiri haddii la doonayo inay somaliland dimuqraadiyaddu ka shaqayso waa in qabyaaladda la aasaa asaaskeyga qabyaaladda ma kuu muuqdaa iminka dee haddii dadku ay garan waayaan reer somaliland garan waayaan dantu waxay tahay wadanka maxaa u dana yaa ina wadi kara labadaas su-aalood oo central ah hadday amba ka meermeeraan amba labadaas su-aalood meel la iska dhigo oo waa reer hebel markoodii iyo waxaa lagu maraysto dee dhimashadii somaliland markaa dee waa qarkay saaranta anugu dee hore waanu sheegay if the country has to live tribalism will have to be destroyed if tribalism has to live the country will have to be destroyed horaanu sheegay anugu dee gegada diyaaradda ee hargeysa ayaan ka sheegay markaas reer somaliland challengekaasi wuu hor yaalaa doorashooyinkaasi iyo xisbiyada jooga iyo xisbiyadaasu sida ay isku soo bandhigayaan iyo doorashooyinkaasu sida ay u dhacayaana waxay markaati ka noqonayaan dee su-aasha labadaa amuurood sida loo kala doorto in qabiil la doorto oo wadankii uu qabiil noqdo meel lagu wado markaa dee wadankii u baabao iyo inuu wadankii noqdo mid qaranka iyo danta guud iyo dadaalka maanta hor yaalla somaliland in la wado oo qabiil la naaquso iyo haddaan la baabiin karin in la naaquso oo meel hoose la dhigo oo laga fogaado waa labadaasa hor yaalla markaa dee waa somaliland what choice halkee la marayaa weeyi doorashooyinkuna iyo xisbiyadaasu siday usoo baxayaana taasay markhaati ka noqonaysa waa tahay professor samater adiga dad badan ayaa ku aanaynayay xisbiga kulmiye oo lahaa dee professorku xisbiga dhexdiisa inuu iska soo sharaxo ayaa laga yaabaa ilaa iminka musharaxiinta aanu arkaynana dee kuma jirtin say wax u jiraan de horta xanta waxaa la yidhaahaa qofka way ka weyn tahay oo adigoon ogeyn ayaa wax badan lagaa sheegaya de waa iska nolosha socialka caadiga ayay ka mid tahay haddii magacaagu uu dadka hor yaallo anigu kulmiye albaabkiisa maan garaacin kulmiyana aniga casuumad iiga timid ma jirto ilaa maanta marka dee iminkana wado kaleba ayuu xisbigii kulmiye maray marka anigu dee xisbigu inuu noqdo xisbi xalaalaysan oo wanaagsan oo doorashooyinkaas si wanaagsan uga qayb gala oo dee haddii au guulaysto si wanaagsan ku guulaystana dee sidaa loogu barakeeyo haddii xisbigaasi laga guulaystana dee dadka ka guulaysta loo barakeeyo loo duceeyo garabaha la qabto waa halkeega laakiin anigu xisbiga kulmiye kumana jiro manaan gelin laygumana yeerin marka waxay iska ahayd un dee sheeko magaalo iyo iska ahayd iyo laga yaabo dee dhalinyaro malaha iska jeclaatay inaan xisbiga soo galo oo aan tartanka ka qayb galo laakiin taasi waxaad moodaa albaabkeygii inuu xidhan yahay mar haddii ay caddaatay in kulmiyo lagu tirinayay aanad ka mid noqonayn
ma laga yaabaa in siyaasadoon ama muuqata siyaasadoo dhan inaad ka nasanayso daanu kolley barta dee howlaan ayaan leeyahay oo dee qof professor oo jaamacad joogo intaa soo joogay baan ahay oo shaqadayda ugu horeysa ee lafta iyo dhuuxa igaga jirtaa dee waa shaqada professornimada siyaasaduna dee waxay ahayd galiinkeygu amba tii soomaali weyn ha noqoto amba tu somaliland ha noqotee dee dadkii iyo ummaddii markaad arkaysa siday tahay hadday kula noqoto inaad la toosin karto jihada ay u socdaan dee waa waajibka kaa saaran dhulkii aad u dhalatay iyo dadkii aad ku abuuray ilaahay wixii ka sokeeyay iyagu dee halkan ku keenay waa important markaa dee inta la nool yahayna aan waxaan ka bartay dadkii Greegii hore waxaan ka bartay cilmiga siyaasadda abuuray asalkeygii ancient Greeks in Athens and places like that waxay odhan jireen laba unbaa ka maarmo siyaasadda laba ilaahay on dee siyaasad u baahnay wax walba dee isagaa og oo gacanta ku haya siyaasad uma baahna iyo xoolaha looda iyo riyaha iyo dameeraha iyo farsaha yaa dee aan siyaasad garanayn oo dee intay meel iskugu yimaadaan ma yidhaahaan aynu saynu isku ururinaayo maxaynu dhisanayo dhaqaale saynu u dhisnaayo sidee baynu maxaan ku rahay adduunyada uga qayb galnaa waxaa ma garanayo xooluhu marka bini aadam kama maarmi karo siyaasad hadduu doonayo dee inuu xadaarad ilbaxnimo iyo adduunyo abuuro oo dadka soo socda iyo dhalinyarada iyo dadka soo socda loo sameeyo dee waddo ay maraan oo iyaguna waktigooga ku yimaadaan oo shaqada qabtaan iyo dhismaha lagama maarmayo markaa dee anigu bini aadam baan ahay qof waxaan ahay waxaa daneeya ayaan ahay cilmiga aan bartee dhaqaalaha iyo siyaasadda adduunyaduna arrimahaas ayuu had iyo jeer ka faallawdaa oo wax ka qoraa oo research ka sameeyo de waanan u damqadaa anigu Somaliland oo dadkaygii waan u damqadaa sidii aan Soomaalida ballaaranba ugu damqan jiray ilaa imikana aan ugu damqado dee ummadda Soomaalida meel alla meeshay ku nooshahay aan ugu damqado marka dee waxa igu waajibay inaan isha ku hayo danta Somaliland halka ay taagan tahay halkay ku socoto halka ay ku socon karto inaan isha ku hayo oo hadday ii suurtageli kartana aan gacanta wax ka siiyo waxaan aanan ka baxsan karin wey markaa dee ka nasashada Somaliland siyaasadeedu hadday tahay miyaad ka quusan kartaa weli halkaa maan gaarin ugu dambeyntii Professor Samatar xagga Soomaaliya haddaynu eegno doorashadii sanadka 2012 ayaad ka qayb gashay waxay nagu soo dhow doorashadii 2016 say u dhici doontaa baad isleedahay doorashadan cusub Soomaaliya iyo Muqdisho siyaasadeedii anigu intaan ka ogahay waana isha waan ku hayaa dee qof researchka iyo dantaa guud isha ku haya ayaan ahay warwar weyn baan ka qabaa wax iska bedelay maanta qof isoo qaaday oo stuudiyahani keenayay oo Soomaaliya oo arrimaha isaguna indhaha ku haya wuxuu yidhi professorow halkan markii aad nagu soo martay ee adigii xisbigii hiil qaran aad gasheen dadaalkii arrimaha siyaasadda iyo madaxtinimada Soomaaliya in la qabto 2012 maanta wax iska bedelay ma jirto buri waa khidadii iyo hadalkii oo sideedii una wax isbedelay ma jiro dee waa nasiib darra 4 sanadood haddaanay waxba iska bedelin anu Xasan Sheekh iyo dowladdiisana bari horaan ka qoostay inaanay ahayn dad amba garanaya amba doonaya in la bedelo wixii hore oo dee saansaanteeda bari hore la arki lahaa isaguna wuxuu doonayaa dee sidii Shariifun dee inuu haddana soo noqdo halkii uu ka miiso ayuu doonaya marka dee waxaan ku gubaabinayaa dadka ku jira siyaasadda Soomaaliya khaasatan wixii baarlamaan la odhan jiray ku jira haddii ay iyagu yihiin kuwa soo dooranaya madaxtinimada Soomaaliya inay raadiyaan waddo kale iyo dad kale inay raadiyaan waa lagama maarmaan haddii kale dee waa isna caybkaas iyo foolxumadii unba sii soconaysa iyo qalbi jabkii dee dhalinyarada ummadda Soomaaliya gudaheega ku nool haysata marka waxaan ugu ducaynayaa in Ilaahay tuso waddo tan ka duwan oo dhaanta laakiin iyaguna dee inay toosaan oo tashadaan waa lagama maarmaan Professor Samatar aad iyo aad baad mahadsantahay waqtigaaga aadna siisay waananu kaaga mahadcelinaa aad iyo aad baad mahadsantahay daawadayaal waxaan intaa kusoo gabagabeynaynaa waraysigii gaarka ahaa ee nula yeelnay Professor Axmed Ismaaciil Samatar tan iyo intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waxaan dhammaantayo idinkaga tegaynaa meel kastoo dunida joogtaan nabadgelyo